maanta waxaan kuu sheegaya sida ugu fudud aad uga saari karto qof kale hadduu guriga kula qoran yahay qofkaasi markaad guriga aad la qaadanaysay wuxuu ka caawiyay arrimaha mortgage-ka si lacagtaasi ugu qalanto guriga si aad ku iibsato laakiin haddaad garanay meel laga bilaabo maanta waxaan kuu sharaxaa iyadoo step by step guide ah hawshan meeshaad u mari lahayd walaal soo dhawo magacayga waxaa la yidhahdaa daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment iyo wax loo yaqaano personal development waxaan ahay the founder of Sahan Investor waa platform dadka Soomaalida ay ka bartaan real estate investment insha Allah nagu soo booqo sahaninvestor.com haddaad rabto arrimaha guriga inaan kaa caawiyo ama guri cusub inaa iibsatid haddaad rabto insha Allah iga soo qaado website-kayga sahanrealty.com insha Allah na soo follow garee video noocan kala soo aragto waa inaan bilaabaya marka koowaad inta taagalin waa inaad fahantaa horta guriga markaa mulkinayso sida loo mulkiyo haddaad guri iibsanayso maanta si laba jeer ayaa ku mulkin kartaa wax loo yaqaan ayaa jira joint tenancy iyo wax loo yaqaano tenancy in common so waxaan ku hormarayaa kan koowaad loo yaqaano joint tenancy-gaasi oo wax loo yaqaano equal ownership waaye guriga waa 50-50 qofka labada qof is leeyihiin haddaan ka soo qaado Faarax iyo Cali ayaa guri isla maanta Faarax wuu dhintay Cali ayaa guriga la wareegaya laakiin qaybtaasi hadduu la wareego taasi ma dhacayso wax loo yaqaano probate maxkamad lama aadayo haddaan aado qaybta kale oo tenancy in common ah tani waxaa loogu talagalay dadka badana waxaa isticmaala apartmentiyada isla iibsada badana oo kale ayaa isticmaala waa la kala qaybinaya boqolkiiba hadduu yahay 25 adigaas kale so hadduu qof uu lacala wax ku dhacan labadii wuxuu ku wareegaya arinta waxa ku wareegaysaa qof kale laakiin waxa kale sameyn kara qofkaasi wuu iska wareejin karaa hantidiisa qof kale ayuu ku wareejin karaa hadduu mid kamid qof dhinto this one waxa aadi doontaa probate ama maxkamadda aadi doontaa so maadaama aad fahantay hadda sida loo mulkiyo guryahani waxaan ku bilaabayaa arintani meeshaad u mari lahayd adiga so marka koowaad waxa ugu horeeya intaada sameeynin ka hor waxaan ku sheegayaa steps aad mari doonto laakiin inta sameyn ka hor arrimaha waa inaad ogaataa marka koowaad horta gurigan ina qof ka saarto haddaad rabto qofkaasi waa inuu raalli ka yahay asaga waa inuu ogol yahay hadduu ogoleen lagama saari karo literally any real estate lawyer u tegi doontaa kama saari karaan waxaa kaloo ku sheegi doonaa lacag property tax haddii lagugu leeyahay dowladda waxay u qaadanaysaa inuu qofkani iska wareejinayo mas-uuliyadda saarneed ama dowladda lacagta kuleed uu ka cararay waa inaa lacagta la bixiyaa haddii lagu leeyahay waa haddii IRS kugu leeyahay lacag iyadana waxba kama bedeli kartid waa haddii lagugu leeyahay child support kama saari kartid waxaa kale oo kale oo fiirinayaa in lacagtaasi aad iska bixin karto ayuu fiirinayaa companyga la fiirinayaa so hadda intaasi aad tigareyso like all of them aad checklistiga mariso processka wuxuu ka bilaabmaya marka koowaad real estate lawyer inaad la tashato real estate lawyerkaasi u sheegi doonto qorshaha wuxuu yahay so wuxuu ku sharaxayaa sharci ahaan waxana wuxuu yahay aniga real estate lawyer fara badan ayaa la shaqeeyaa oo isla shaqeynaa ayaa jira oo aad dad u fiican oo dad ka caawiya arrimahani okay laakiin real estate lawyer badana kuba qaar saacado ay ku shaqeeyaan kuba qaarna waxay kugu judge gareeyaan just flat fee oo ah $4,000 ku judge gareeyaan dadka kuba qaar ku judge gareeyaan an hour $600 ku judge gareeyaa jira kuwaasana ugu raqiisan daasi u fiiriso so lawyerkaas oo ku draft gareyn doono wax loo yaqaana quit claim deed wax ku draft gareyn doono waa contract waaye contractigaas oo ah si loogu wareejin lahaa ama magaca looga saari lahaa qofkani meesha guri kula qoran contractka hadduu sameeyo wax loo yaqaana jira notarization of quit claim deed qof kale ayaa notarization ku sameynayo ama qof kale ayaa markhaati u noqonayo qofkani inuu qofkaasi laga saarayo taa hadday dhacdo intaa markay dhacdo contractiga qofkaasi uu saxo waa inuu saxaa qofka gurigaad ka saarayso hadduu uu saxo contractigaasi kadib waxaa laga record garanayaa countiga ayaa la geenayaa iyadoo laba qofkani uu saxay qof kale oo notarize gareeyay isagana uu saxay labadaasi ayaa waxaa loo gudbinaya countiga so countiga ayaa laga register garanayaa so countigaas oo badana lacag bay ku charge kareen dadka wax loo yaqaan recording fees ayaa jira oo roughly in between badana Manasoro waa $46 ilaa mararka qaar wuxuu noqdaa up to $86 uu noqdaa kadib waxaa muhiim ah ayadana ninka lenderka ah ama mortgage ka qaatay inaad ka soo hesho consent of removal bangiga inuu ogaado qasam ma aha haddii dhacdo laakiin uu ogaado adigaad u sheegi wayso wax loo yaqaan ayaa jira due on class oo ah lacagta deymaha lagugu leeyahay dhan gabi ahaantiisa waa laga rabaa in lagu dhaxo taasi see u dhaceen ka hor badana bangiga ma kala jeclo as long monthly payment-iga aad awoodo inuu ogaado ayuu rabaa kaliya as long uu ogyahay shaqo fiican aad ka shaqayso aad bixin karto lacagta monthly payment-iga aad awoodo aana soo cadeyn karta lacagtaasi meesha ka soo gasho intaas ayay noqonaysaa so intaasi hadday ka soo dhamaato mortgage la ogaado bangiga loo sheego waxaa loo gudbiyaa title insurance-ka in la update garay iyo noqonaya insurance meesha kugu jiro sababtoo hadda insurance-kaasi waxa ugu jira systemka laba qof inaad ku tihiin meesha in la update garay iyo noqonaya so then processka saasoo kugu dhamaanaya insha Allah arrimaha guryaha hadda rabto inaan ka caawiyo ama guri cusub inaan iibsada rabto waxay ka soo qaban kartaa
website-kayga saxanrealty.com. laakiin haddaad rabto inaad barato arrimaha real estate investment-iga ay ka mid yihiin fix and flip, buy and hold, wholesaling, subject to, insha Allah nagu soo booqo saxaninvestor.com. insha Allah na soo follow garee video noocan kale soo aragto. Assalaamu calaykum.